abwaanka marka kulli waqtigu waa inagu gaaban yahay in doorana waa la fadhiyay oo la samreeyay aad baan idin salaamaya dhamaantii haddaan maansadayna dhaxgalo waxa oranaysaa gabayada ma waageeran in dhaweyto wowgooda wiglada iyo geeraarka maansada ma wariyeene dareenka ay weeteeyay waxa iga duryaminaya cishqigii i weelaystay ayaa walanqo ii saaray waaxyaha jidhkaaga oo dhan maankaa ku weyneeyey kaa dhigay sidii waafi wejigaaga doondoonay kol haddaan wanaagayga waanada ku siinayay weecdayoo ka soo baydhay ka wahsadey jacaylkaaga wehelkaaga uma baahni warqadiyo qoraalkaaga wacadkii markaad burisay wadnahayga kaa gooyey weedhiyo ammaantayda haddaan beri walaacayay warwarkii quluubtayda laga goy wareerkaaga waydiyo xasuustaada walbahaarkii iga guuriye caashaqa la waalwaalo waaxyahan idhuubnaaday weyd laygu xamanayay laga daawaday caynta hadday beri i wiiqaysay kol haddaan waraaqaayo uma jeedo wararkaaga naftu way ka waantowday wicistiyo garaacaaga beentiyo warjaafkaaga wadnahayga iyo beerka wadayaasha dhiiggayga xubbigii wadiiqaystay wahankaagii laga suuli adiguna la weetayso wakhtigiiyo duruuftaada waayaha sheegsheegin uurkaagan wiidaysan warka iyo wacaashaada helayoo waliilkaagu wehel buu u baahnaaye qalbigaa ka waantoobay haddaan anigu wax qaban lahaaba qalbigii baan ogolayn badee iyo dareenkii baan u jeedin badiyey marka maansadaasuna intaas baynu ku saafmeerinaa sugaantu runtii laangaab iyo laandheer ay kala leedahay hu bay leedahay waxay leedahay humaageyn bay leedahay hogatus bay leedahay yacni sugaantu runtii waa badh nin walibana intuu ka yaqaano unbuu ka darsadaa sugaanta abwaanku caawa inoo soo jeediyey runtii aad baan u mahadinayaa sugaan aad u qurux badan bay runtii ahayd oo dareenka runtii taabanaysa ragga dee wixii jacayl lagu weeyahayna dee xagga jacaylkunbay danaynayeen wixii kalena dhinaca kalunbay danaynayeen laakiin runtii sugaan qurux badan bay oo isku jirta bay ahayd aad buu halabuurku u mahadsan yahay